السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتي كحرن عابد تكنولوجيا في انستيتيوت ألا waxaan ugu barateen culumteena ku bixi jirtay luqadda af Soomaaliga waxaan ugu leeyahay ama in ku guda jirnay koorskeena Linux 1 waxaan yiri terminalka labkeena koobaad wuxuu ahaa installationkii labkeena labaad wuxuu noqonayaa basic commands si aad u soo weynayso daaqadan terminalka waxaan ku waxaad isla taabanaysaa control iyo shift iyo plus markaad garanaysaa waxaad taabanaysaa control iyo shift control iyo minus كانت ما كدويني نسمع حكوا حتى هبنا كانترول شيفتي يا بلاس وكو لكن كوبا دبو حاسيلو اوغانو كارنل كي نوغو جيرا اما اوس كي نوغو جيرا maxay qori jirnay waxa waxa qoraysaa uname wuxuu noo sheegay inuu nagu jiro maxay linux habkan labaad u sheegay ka xararo kartaa uname minus o waka gnu waxa weeyaan waa linux way system time ka taba si inuu ogaado waxaad qoraysaa time ka up time ko kay noo sheegay smart minidana waa kuwan hal user baa ku jira waa inta date ka hadaba system date ka sida ogaanayso maxaad qoraysaa baan ku yiri date wuxuu noo sheegay date ki waka July sanadkiina kay noo sheegay way calendar ka hadaba calendar ka waxaad qoraysaa calqura waxaad qoraysaa inta calendar kiina kay noo sheegay laba hab waad ku baabin kartaa baan ku yiri screen kumbraaydo ama terminal ku haday ka buuxsanto wala marko waxaad qori karaysaa clear hada qori kale weydo waxaad la taabanaysaa control iyo l isla garanay way ls waa list directory-ga ku jira ama fileska ama directory-ga ku jira home directory-ga marka aan joogo marka ama xaaladda aad joogto itus marka leedahay waxa weeye ls wuxuu ku tusayaa chief marka aan soo dheeraadiyo tusno xaaladaysa asalongi tus waka si kala waad u oran kartaa waxaad oran karaysaa ls minus l waad qori karaysaa saddexda habba waa isku mid marka iska baabinayso waxaad qori karaysaa clear hadaba basic command diskini waan tagayna cat horta marka hore xarayna xagaan jooga bwd xagaan jooga home ka jooga waxaad ka sii joogtaa user ka caawil dhao way waxaan doonayaa hadaba si aan u galo maxay music aan file ku samaysto waxaan raadinayaa cd music imika xagaan jooga music baan jooga si aan daba file music ugu samaysto waxaan raadinayaa cat gelita dan iyo file name ki file 1 ba ka dhig file 1 ki imika wax ku qor buu leeyahay waxba ku qori maayo waan save gareynaya control d baan leeyahay si aan hadaba ogaado file music inuu file igu jiro maxaan raadinayaa ls waka file 2 gaan soo samaystay hadaba aan file ka u galo waxna uga bedelo waxaan oranayaa cat iyo file ka magaciisa imika xagaan ku jira file 2 ee waxa raaya cat double greater than iyo file maxay file 2 imika wax ku qoraya marka qoraalkayga si aan daba qoraalkayga u save gareysto waxaan oranayaa baan ku yiri control iyo d ls file 2 hadaba si aan u galo waxaan oranayaa cd maxay xaraya file 2 naiga baabi waxaan oranayaa horta intuu kan joogo waxaan oranayaa cd cat file 2 waka wixii fileka igu qornaa markaan doonayaan la soo bixinaan ogaado file labaad baan samaysanaya markaan la dib u noqonayo home directory ku noqonayo xoraya cd laba dot kan joogaa imika home directory baan joogaa marka hore hakan joogin music sad music imika waxaan ku sameynaynaa videoga ku sameynaynaa cd baan oranayaa maxay videos imika xagan ku jira waa kan soo noo sheegay videoga ku jira somaha file baan ku sameysanayaa waxaan oranayaa cat then file 3 ba ka dhig waxaan ku qorayaa file 3 kayga xogta aan uga baahna waan save gareynaya control d si aan ogaado hadaba file kayga inuu samaysmay waxna igu qormay waka file 3 gaan samaysmay hadaba si aan file 3 ga u dhex galo waxaan oranayaa cat iyo file ka magaciisa waka way si aan hadaba uga soo baxo waxaan oranayaa waan ku oranayaa cd laba dot ls ka baabi imika xagaan jooga home directory laba file baan soo samaystay mid waxaan ku soo samaystay music midna video
inaan daba hubiyaan doonaya xoraya cd music musiga maxay ku dhex jiraa hadaba waxay ku dhex jiraa faylka haddaba sidaan u delete garayn karaya waxaan odhanayaa rm haye rm iyo faylka magaciisa iminka faylkayga wuu delete garayay si aan u hubiyo waxaan odhanayaa ls faylkii kuma jiro si aan haddaba u galo videoga anoo musiga jooga waxaan odhanayaa cd slash home userkan ku jiro iyo halkan doonaya inaan tago destinationka iminka videogan ku jira videoga maxaa igu jiray faylkayga iyo file 3 si aan file 3gayga ula soo baxo waxaan odhanayaa ls okay file 3gayga si aan u galo wixii igu jirana aan eego waxaan odhanayaa cat iyo faylka magaciisa okay si aan faylkayga haddaba u delete gareeyo waxaan odhanayaa music horta halku igu jiray ama folderku igu jiray faylkaygu ls okay faylkii waxaan odhanayaa rm baan ku delete garaynaya iyo faylka magaciisa intaan waan isla garanay maxaa inoogu xiga haddaba si aan multiple files u samaysan lahaa iminka fully videoga ka jira home directory aan tegayaa si aan home directory u ogaado waxaan odhanayaa bwd halkaasaan jooga haye waxaan daba sameynaya multiple file markaan sameynayo waxaan odhanayaa waa touch haye file 1 file 2 iyo maxay file 3 si ay haddaba igu samaysmeynayaan u ogaado maxaan odhanayaa ls waa kuwa way samaysmeen file 1kaygi waa kan file 2gaygi waa kan file 3gina waa kan sooma si aan haddaba mar u wada delete gareeyo saddexdaa file waxaan odhanayaa rm minus rf file 1kaygii haye file 2gi isagana haye file 3 ls markaan dhaho inaan saddexda file dhawaaya kuma jiraan haye waxaan odhanayaa downloadskan ku sameynayaa saddexdaa file waan delete garaynaya waxaan odhanayaa cd haye cd markaan dhaho waxaan odhanayaa downloadska iminka halkaan joogaa downloadskan joogaa haye downloadska maxaa ku jira waxaa kuma jira si aan haddaba ugu samaysto multiple files waxaan odhanayaa touch file 1 file 2 file 3 adigu waad ka batan karaysaa file 3 file 4 way si aan u ogaado haddaba downloadska waxa ku jira waxaan odhanayaa ls afartaa file baa igu jira si aan u delete gareeyo hal mar waxaan odhanayaa rm minus rf file 1 file 2 file 3 iyo file 4 hal mar bay wala bixeen ls markaa hore waxaa yidhi ls markayna maxaa igu jira downloadska maxaa la igu yidhi intaasoo file baa ku jirta folderka downloadska la dhaho markan aan delete gareeyana maxaa la igu yidhi waxba kuma jiraan markaan home directory tegayo waan isticmaal waxaan odhanayaa cd laba dot way haddaba si aan u samaysto inta naga baabi'i si aan u samaysto single directory ama folder waxaan odhanayaa mkdir togdheer itus home directory waxa ku jira togdheer okay isla garan si aan folderka togdheer u dhex galo waxaan odhanayaa cd togdheer iminka waxaan joogaa home directory waxaan joogaa folderka ayaan ku dhex jiraa maxay togdheer maxaa ku dhex jira ls wuxuu kuma dhex jiraa folder basaa kasii dhex samaysanaya mkdir orbit folderka haddaba togdheer waxay ku dhex jira wayaan ka dhex helaa folderka aan samaystay ee loo yaqaano maxay orbit ls waka dib baan ugu baxayaa waxaan doonayaa inaan dib u baxo waka ls baan leeyahay si aan dab folderka iyo wuxuu ku jiraaba u delete gareeyo maxaan odhanayaa rm minus rf maxay togdheer folderka togdheer iyo folderkii orbida ku dhex jiray isla mar markaad delete garaynayso by forcefully rm or remove minus rf bada soo odhanaysa ls aan nidhaahno folderka iminka kuma jiro folderka aynu samaysanay wanagaa delete garaynay
kuma jiro way folder haddaba folder ku hoos jira markaan samaysanayo nested create waxa weeye to create a nested directory waxaa odhanayaa mkdir -b stationka folder 1 forward slash iyo maxay folder 2 maxaan samaysanay imika folder 1 oo folderkeena directorygeena koowaada waxaa ku hoos jiraya folder 2 si aan u xaqiijino waxaan odhanaa ls haye ls ma yidhi maxaa inoo soo baxay folder 1 folder 2 geeni mi isaga markaynu dhex galno waynu ka helnaa si isaga u dhex galayna change directory baan leenahay waa cd maxay folder 1 saynu xaqiijisano folder 1kii inaynu ku dhex jirno maxaa odhanaa pwd xagaan ku jiraa folder 1 baan ku jiraa soo ma waay maxaa igu xiga inaan folderkii aan ku dhex sameeyo folder 1ka inaan helo nestedka ls maxaa ku dhex jira folder 2 aan ku fahansiiyo waxaan idhi waxaad ii samaysaa folder 1 waa qodobka koowaad optionka labaad waxay folder 2 folder 1 markaad ii samayso folder 2 na igu dhex samee waay halkan waxaan idhi folder 1 baynu gallay waxaan folder 1 inagii maxaa ku dhex jira baynu halkeen joognaa baynu idhi markan waxaan joognaa folder 1 baad ku dhex jirtaa marka koowaad home baad joogtaa userka cawil baad ku jirtaa folder 1 baad ku dhex jirtaa folder 1 waxa ku dhex jira ituspanel maxaa ku dhex jira baa lagu yidhi folder 2 aynu ka soo hoos samaynay folder 1 way si aan u delete gareeyo hadaba list diskiga ama waxa leeyahay si aan uga baxo waxa leeyahay cd laba dot imkaan jooga home directory aan jooga saad xaqiijiso ka way si aad u delete gareyso hadaba folderka nested-ka waxaad odhanaysaa rm-rf folder 1 iyo folder 2 mar bad wada delete gareyn karaysa ls kuma jiro ayuu ku jira aan delete gareey rm waxa weeyaan xasuusu hubiyo bismillah ls folder 1 ku jira ha rm-rf haye folder 1 iyo maxay folder 1 iyo folder 2 saan doo iyo ka baxay mar quraan wada dhigay marka hore waxaan ku khaldayay halkaasan wanka raacinayso wanka kan buu ahaa magta aan marlabaad ku celiyay waxaan xarunaya taytus xarunaya mkdir -b waxaan odhanayaa folderka la dhaho orbit haygu hoos jiro folder la dhaho advanced si aan u hubiyo waxaan odhanayaa ls orbit waa kaa ii samaysmay soma saan orbit hadaba kor xoraya cd orbit maxay igu hoos jiraya advanced ls waka saan hadaba labadooduba hal mar u wada delete gareeyo marka koobaad kanaan delete gareynaya kan markaan delete gareynaya ka ku hoos jiraan uu delete gareysmaya xoraya rm-rf folderka la dhaho orbit waxaana kusii hoos jiraya advanced ka ku hoos jira waxaa kusii hoos jiraya maxay advanced baa kusii hoos jira labadaba mar wada delete gareey ls weli wuu ku jira rm-rf folderka la dhaho orbit iyo wixii ku jiraba delete gareey ls baa okay toos buu ka baxay sibarti way okay waan ka saaraya waxa la igu yiri waxaad samaysaa maxay multiple directory fara badan waxaan directory fara badan markaad samaynayso waxaad odhanaysaa mkdir folder 1 maxay folder 2 folder 3 hal mar bad wada samaynaysaa si aan u xaqiijiyo waxaan odhanayaa home directory-ga waxa ku jira itus iminka waa kan folder 1 waa kan folder 2 waa kan folder 3 na waa kan si aan u delete gareeyo hadaba waxaan odhanayaa rm-rf folder 1 folder 2 folder 3 hal mar wayna delete gareeyo ls wayna kuma jiraan waxa la igu yiri muusiga ku dhex samee 3 folder ama 4 folder horaya cd music imka xagaan jooga music xaqiiqi pwd
waxa la igu waxaad ku dhex samaysaa afar folder oraya mk dir waxaan oranayaa folderka la dhaho Axmed iyo Jaamac iyo Khalid iyo Muuse waa afar folder ls wayna ka dhexela hadaba afarta folder waa kuwa afarta folder si aan hadaba afarta folder mar u wada dhig gareeyo waxaan oranayaa rm minus rf هي وككواد أحمد وكلاواد جامعة وكسدحاد موسى وكأفراد غالب مربع وين الجري أنا حقيقي الأسبوع الرأي تبوا بحر أم دايركتري الأسبوع الرأي حكاك صوص ميست موسيقى مجري طبعا أفتي فولدر كده كنت من حقيقي الأس أوكا واي marka casharkaas intaas inuu go'ay insha Allah wixii dambe la soo gudbinaya. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.